إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب. إن الإسلام سلام لا خوف أو إرهاب، دين سلام وأمان والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب، والناس هنا أحباب. ولد الإسلام غريبا واليوم نراه غريب، وصفوا ديني إرهابا والمسلم صار مريب. ولد الإسلام غريب ووصى بها ديني، في الحل والترحال، في السلم في الحرب، في الأمن في الأخطار. إسلامنا عظيم، 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 إسلامنا عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa darsigeennii 12aad oo ka mid ah duruustii aan ku sharxaynay manhajka jamaacatul ixtisaam bilkitaabi wasunna. waxaan ugu dambeysay anagoo ka hadlaynay manhajka dacwada iyo taqyiirka iyo ummadda islaaxinteeda, oo aan nidhi laba qaybood ama laba weji ayaan ula tacaamulaynaa. weji ah in ummadda waxa ka maqan oo ka dhiman loo keeno iyo wasaa'isha loo marayo waan soo marnay. 16 wasiilo ayaan sheegnay oo insha Allah taala haddii la qaado ummaddu inay isbedesho oo xagga wanaagga ku tallaabsato la rajaynayo. maantana waxaan galaynaa wasaa'isha iyo dariiqooyinka haddii la isticmaalo ummadda jiritaankeeda iyo wujuudkeeda iyo waxa ay haysato diin iyo adduun ah in loo waardiyeeyo ay ka dhalanayso insha Allah taala. qaybta sida aan sheegnay waxa weeyaan waa qaybta ku tacalluqda wasaa'ilu alxifaad cala almawjuud. kuwii hore waxay ahaayeen wasaa'ilu taxsiil almafquud, waxa maqan oo la soo xasiliyo waan ka soo baxnay. hadda waxaan galaynaa waxa jooga oo la haysto sidii loo waardiyeyn lahaa. waxay ka farcamaysaa maadaama dadka muslimiin yihiin sida aan soo marnay oo aan sheegnay mas'aladaas inay u tahay muhim manhajka dacwada. dadka muslimiinta waxa ay haystaan diintii waxba uga dhaqan, marka in diinta waxay ka haystaan loo waardiyeeyo, ayaga jiritaankooda la waardiyeeyo, nabadooda iyo deganaanshahooda la waardiyeeyo ayaa ka dhalanaysa. marka wasaa'isha lagu waardiyeyn karo ummadda jiritaankeeda iyo diinteeda iyo waxa ay haysato ayaan bilaabaynaa. wasiilada koobaad waxaa weeye al-amru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar. dadka wanaagga la faro, xumida laga reebo, iyadoo qawaaciddeeda iyo maaragtay dawaabidiisa iyo maraatibtiisa la marahayo. ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waulaa'ika hum lmuflixuun. ha laydinka helo dad ama koox ama jamaaco dadka wanaagga ugu yeeraysa, khayrka ugu yeeraysa, wanaagga faraysa, xumida ka reebaysa, kuwaasina kuwa liibaanaya weeye. in macruufka la isfaro, munkarka la iska reebaayo waa wax weyn oo diinteena meel weyn kaga jira. ilaa culimada qaarkood ay yiraaheen haddii arkaanta islaamka oo shanta ah mid lixaad lagu dari lahaa mid kaan buu ahaan lahaa baa la yiri qiimaha uu leeyahay. marka dadka in munkarka laga reebo, macruufka la faro weeyaan. munkar maxaa la yiraahaa? munkarka mowduucan asaga ah oo ah al-amru bil ma'ruf والنهي عن المنكر حوغا تفصيل أيان قليلني
سببته ومواضيع انحراف وقلي انحراف كاسون هو قديم إلى هدنا واجرا ومرك لقاه الله أيوه انحراف كخوارجته انحراف كمعتزلة وحالة الماما إن مسألة ذان يكون انحرافين وما سيدا منكر لو إنكره أيوه سيدا معروف كلو فره أيوه أيها كخردنتي مركز يكون انحرافين وكتر احتاجين إلى هدنا واجرتا وجماعات كدينية أما دعوة عن كتعلقة أما الصحوة الإسلامية كأبتر صدقين بدروا كم ذا باب كان كإنحرافين مركز كإنحرافين لب فربضن أيها كسو قاري وبابا يبربر تاريخ المعاصر كان سات الشيء جيسا مركز حلو بهاي منكر كذا كلا جريبه هيو إن فهمناه منكر وحال يروح كستا وشريعته نقربتي أيها منكر اللي يراها wax kastoo naga reebtay shariicada ayaa munkar la yiraahaa haduu rabad yuusan macsi ahaanin fi xaqi saaxibihi qofka sameeynaya hadii xataa asagu uusan macsi ku ahayn laakiin uu munkar u yahay waa la reebaya mesela qofka waalan iyo qofka yar oo maaragtay sabiga ah waxay sameynayaan hadii diinta khilaafsan yihiin waa laga reebaya inkastoo ayagu shakhsi ahaantooda hadii aan dambi loo haysan aan uquubo maaragtay la uquubeynaynin maxaa yeelay ayagu waa marfuucul qalam weey ومثلا قفك والا إنه زين يستلمه أو قال ولا جعلنا يا قفك ير هذو خمر عبها يو ولو ديده هي مرك وحن هو منكر لكن في حق الفاعل معصمة أي أها معايا المكلف قفك ما أها وشروط التكليف أيها كم غن منكر كلا مرك الله ينكرها هي شروط أي علماء الشيغان شروط وحا كم ذكو وحا ينكر يسيد خرطين منكر يهين وإن له بصداء وديني أهان منكر ويهين مد اللباد منكر كإنكريس وإنه حالة إنكريسيد وإنه تاجين هاي لكن هذه لوكا لتجي أو لوكا لبحي هذا محل إنكرها مد صدق هذا حويه مركب منكر كإنكرها أيوه وإنه يه منكر مغضح أو تجسس مارت يرادين عن كعب بحنين مد أفراد وحويه إن إنكار كاس يوح أديد يساي أي تهي مسألة أنا هين أمورتا لسكو خلاف سنية هاي ديني أهان خلاف معتبرة ومارك تقييمه سله مرة هدي واحد لسكو خلاف سنية هاي ومثل السائد دليل كده ليهين أو لسكو هايسته شيء قاسي خلاف كان معتبر كقصة أروري منكر لما يراه لكن نقاش إيو يتفهم سين إيو أيها لقى أباري كرا مركب منكر كالريبة هيو منكر كمراتب يدرجوين أيها الوريبة oo ku xiran qofka awoodiisa iyo waxa ka dhalanaya oo maslaxa ah waxa laga soo qaatay xadiidkii saxiix ahaa oo nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku lahaa man raa minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iiman xadiidkan baa laga soo qaataa maraatibta iyo sida munkarka loo inkirayo al-inkaru bil yad in gacanta lagu inkiro oo wixii gacanta lagu zuuliyo shardigiisu waxa weeye in la awoodo mafsadana aysan ka dhalanaynin waxaana isticmaalaya qof kasta ayaa isticmaali kara wuxuu ku isticmaali karaa inta uu maamulo ama laga dambeeyo ama amarkiisa ka socdo oo mesela guriga oo kale dadka waalidka ah jooga gacan waa isticmaali karaan sidoo kale ma aragta macallinku meesha uu joogo gacan waa isticmaali karaa sidoo kale dawladda waxa kada cid kasta oo sulta ah oo la ictiraafsan yahay oo inta ay maamulaysa warkeeda la yeelahayo amarkeeda la fulinayo waxa munkarka gacanta waa ku zuulin kartaa hadii mafsada aysan ka iimaanaynin mid kale waxa weeye al-inkaaru bil lisaan in arabka lagu dooriyo lagu inkiro asna waa sida oo kale istitaacana waa la rabaa mafsada la'aana waa la rabaa oo mesela waxa kamid mafsadada hadii adigii markii waxa ku hadashid dib weyn ka dhacayo oo aan ma aragtay dib weyn adiga lagu gaarsiinayo ama dad qaraabadaada ah ama dad dariskaaga ah ama dad kula xiriira uu dib ka soo gaarahayo laguma ogola ama qofkii markii la hadashay hadalkii waxa uu diideysay wax ka xun uu ku sii hadlahayo al-inkaaru bil qalbi asna waxa weeye qofku inuu waxan qalbiga ka diido ayadu marna ma dhacayso maxaa yeelay qalbigaaga adaa xukuma cidna ku daalacan mayso marka waxa inaan nacdid oo ka fogaatid oo karaahsatid wax hadda ma aragtay laga cafin hayo ma aha wax ka dambeeya darajadaas ma jirto mid kale waxa jira waxa la yiraahdo dawaabit inkaar al-munkar marka munkar la inkirahayo waxa ka dhalan kara iyo sida isku bedeli karaan ayaa la eegayaa
waxa aad diidaysid talo maxaa ka dhalan kara ma ka daraysaa ma ka raynaysaa ma ka soo maartay fiicneynaysaa ma isku mid bay ahaanayaan waa la fiirinayaan ayadan 4 darajo ayay leedahay la yiri tan koobaad waxa weeye munkarkii la inkirayay inuu zuulo oo wanaag uu meeshii yimaado waa mid u fiican mid labaad waxa weeye inuu san zuulin laakiin uu yaraado ayaduna waa fiican tahay saddexaad waxa weeye in asagii uu baxo laakiin asagii oo kale uu meeshii soo galo afraad waxa weeye in asagii wax ka liita ama wax ka xun ay soo galaan meesha sida culimadu ay leeyihiin labada darajo oo hore waa laba darajo oo mashruuc ah oo loo baahan yahay waa marka asagii uu zuulahayo macruufna uu booskiisa iimaanayo iyo marka uu san zuuleen laakiin uu yaraanayo labadaas laba darajo oo madluub ah weeye midda saddexaad oo ahayd in maaragtay waxa asaga la mid ay booskiisa yimaadaan waa maxallu ijtihaad weeye qiyaasteeda iyo ayaa laga ijtihaadayaa midda afraad oo ah in asagii booskiisa wax ka xun ay yimaadaan ayadoo waa xaaraan lamana sameeynayo lamana ogola marka sideeda iska ahaato intii aa ka dari lahayd waxaana jirtay maartay qisam macruuf oo la yiraahdo Sheikh Hassan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asagoo meel marahaya asagay ardadiisii ay wax soo mareen baa la yiri koox khamra cabaysa oo ciidan ah oo tataarkii kamida oo dib badnaa markaas waxay yiraahdeen dadkan khamriga ma u diidna wuxuu yiri iska dhaafa khamriga loo qaatay maxaa yeelay hadii khamriga ka joojino ay soo jeestaan dadka maalkooda iyo naftooda iyo cirdigooda ayay boobayaan buu yiri marka inay sakraansan yihiin oo meeshooda iska daadsan yihiin baa u fiican buu yiri marka waa fiqh runtii loo baahan yahay in la fahmo waa dib fara badan oo ka dhacay dacwada mucaasirka in la isiri waxaan hal la bedelo waxaan hal la inkiro laakiin wax ka xun lagu dhacay aad ay u badan tahay taasina waa xaaraan marka waxa fahmaysaa waxa diinta ku amraysaa maxaan ku yiri in laga fiirsado in loo baahan yahay marka inkaaru munkarku waa wasiilo la doonayo in wax lagu hagaajiyo hadii marka is wax ku hagaagaynin oo wixii ka darahayaan waa la iska dhaafahayaa qawaacidaas loo marayaa marka wasiilo weeye gaayo maaha maqsuudun lidatihi ma ahane maqsuudun lighayrihi ayaa la yiraahaa marka darajooyinkan iyo anwaacdan sida loo qadarahayo iyo maxaa mafsada ahaan kara iyo maxaa maslaxa ahaan kara arinkaasi dadka ahlu cilmiga ayaa insha Allah ta'ala loo noqonaya taas waa wasiilada koobaad oo umada lagu waardiyeynayo al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar umada lagu waardiyeeya waa shay muhiim ah midda labaad waxa weeye in umada la wacyi geliyo oo umada looga digo wax kasto halis ku ah diinkeeda iyo jiritaankeeda iyo dhaqankeeda wanaagsan iyo dhaqaalaheeda iyo iclaamkeeda ummadii waa jirtaa caalamku maanta waa isku furan yahay wax badan baa isdhex socda marka wax kasta ayaa soo darin kara oo khatar ku ah ummadda jiritaankeeda khatar ku ah ama diinteeda ama xataa dhulkeeda khatar ku ah ayaa imaan kara ama dhaqaalaheeda ama iclaami ahaan marka waxa in ummadda lagu baraarujiyo oo looga digo ayaa ummadda lagu waardiyeyn karaa saddexaad waxa lagu waardiyeyn karaa ummadda in maaragtay la daaweeyo khilaafaadka qabaliga ah iyo dagaalada beelaha ka dhaxeeya in la maartay la joojiyo oo ummadda loo sameeyo wax loo yaqaano islaahu dhaatil bayn ummaddan dhiigeeda inaan kala badbaadino waa maslaxa sharciya weey maxaa yeelay hadii ummaddu nabad weydo idna diin dhageysan mayso idna dacwad u soo jeesan mayso marka dadku deganaada oo nabad hela oo ammaan helaahi dacwada iyo diinta iyo jiritaanka ummadda ayaa anfacaysa midda afraad waxa weeye dadkaani maadaama ay muslimiin yihiin waxbay tari karaan munkarka waa yaqaan inuu munkar yahay macruufkana waa yaqaanaan marka dadka waxtarka ah oo warkooda la yeelahayo oo taladooda la qaadanayo oo wajiga leh oo makaanada leh in laga faa'iideysto oo la iskaalmaysto ayaga sidii ummadda muslimka ah wanaaga loogu fidin lahaa munkarkana looga joojin lahaa sidii loo sameyn lahaa hay'atul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar oo loo xoojin lahaa midda shanaad waxa weeye dadku waa muslimiin marka waxa laga inay jiraan aan hay'ado
ama mu'assasaad lagu talagalay inay diinta u khidmeeyaan sida wasaarooyinka awqaafta oo kale iyo waxa la midka ah marka mu'assasaadka noocaas oo kale iyo masaajidda iyo wax kastoo diinta lagu talagalay in la hagaajiyo oo wixii maaragtay gaabis ku jira laga saaro in maaragtay awood fiican loo yeelo oo la dhaqaajiyo ayaa loo baahan yahay marka mu'assasaadka diiniga oo maaragtay rasmiga ama taqliidiga iska ahaan jiray in la hagaajiyo la fiicneeyo oo doorkooda ay qaataan ayaa loo baahan yahay mid lixaad waxa weeye waxa lagu waardiyeyn karaa ummadda wixii soo dariya oo ummadda halis ku ah in maaragtay culimada loola noqdo maxaa yeelay maanta caalamku waa isku furan yahay marka wax kasta oo soo dhaca oo ummadda diinteeda iyo adduunka iyo jiritaankeeda halis ku ah sida laga yeelayo fataawada culimada in loola noqdo ayaa ummadda lagu waardiyeynayaa si markaa culimadu ay noo tilmaamaan tilaabada munaasabka ah oo markaa la qaadayo toddobaad waxa weeye oo lagu waardiyeyn karaa ummadda in dadka ahlu cilmiga ahlu dacwada ahlu fadliga ay iskaashadaan oo iska kaashadaan sidii dacwada iyo ummadda iyo loo waardiyeyn lahaa gudaha iyo dibaddaba maxaa yeelay dadku inkastoo laga yaabo inay isku khilaafaan masaa'isha qaarkeed laakiin waxyaalaha caamka ah dadku dhammaan waa ka midaysan yihiin ummadda Soomaaliya inay muslim noqoto oo kirishtaanka laga ilaaliyo oo hay'aadka xun laga ilaaliyo oo anshaxooda la ilaaliyo oo akhlaaqda la waardiyeeyo waa la isku raacsan yahay marka baabkaas in la iska kaalmaysto oo wax kasta xumi ah laga hortago oo maaragtay aan loo kala harin oo ducaada oo dhan ay hal maaragtay dhanka istaagaan shay loo baahan yahay weeye gudaha kaliya ma xataa dibadda dadka culimada ah oo jira oo ducaada ah oo ama Soomaalida ah ama qeyrkeeda ah in la iska kaalmaysto si ummadda guud ahaan ay isku xirnaato oo la iska warqabo marka waxa weeyaan toddobada noqdo waa toddoba noqdo oo la oran karo waxa lagu waardiyeynayaa maaragtay al-hifaad baa la yiraahdaa in la waardiyeeyo cala al-mawjuud wixii jira oo la haysto waxaan ku soo khatimeynaa baabka asaga ah aadaab iyo nasiixooyin iyo tawjiihaad caam ah oo ku tacalluqa baabka dacwada midda koobaad waxa weeye al-ikhlaas wal mutaabaca in ikhlaaska lagu dadaalo dacwadan waa dar ilaahay dadka waxa lagu yeerayaa inay ilaahay caabudaan say u badbaadaan adduun iyo aakhiro adiguna ajar ka heshid marka in koox darteed dadka loogu yeero ama dana gaar ah dadka loogu yeero ikhlaaska ayay wax u dhimaysaa iyo mutaabaca in diinta iyo dacwada wadadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la qaado oo la raaco ayaduna maarta dardaaran weeyaan dardaaranka labaad in dacwada la ilaaliyo dawaabideeda iyo waxyaalaha jaagoynta ah oo manhajka salafka si fiican loo qaado xagga dacwada marka lagu socdo waxaana kamid ah qofka wuxuu sheegayo oo diinta ah inay sax yihiin waa shay laga maarmaana صحة المعلومة waxa sheegaysid inay sax yihiin baa loo baahan yahay haday quraan yihiin haday xadiis yihiin haday qowl kale yihiin tan kale waxa loo baahan yahay husnul ardi in waxa si fiican loo soo bandhigo ayaa loo baahan yahay saddexaad waxa weeye waxa munaasabadooda in la eego dadka munaasabka u ah xaaladda munaasabka zamanka munaasabka ayadana in la eego loo baahan yahay midda saddexaad waxa weeye dacwada in laga dhigo wax dadka loo sheegayo oo dadka loogu naseexeynayee aan laga dhigin wax dadka laga sheegayo oo khitaabka maaragtay warka dacwadu inuu u bato weeyaan dadka wax aan ka rabnay inay noqdaan dadka meesha maaragtay inay gaaraan la doonayo in dadka loo bayaaniyo in halka culayska la saaro weeye in culayska la saaro ma aha dadka sida hadda ay yihiin iyo xaaladooda iyo faaladooda iyo qofka oo maaragtay asaga maxaan ku lacaanaya ma ahane dadka waxa laga rabo iyo waxa loo baahan yahay waa in dacwadu ahaataa khitaabun linnaas la khitaabun anin naas afraad waxa weeye dacwada waa inay ahaataa wax waadix ah oo basiit ah oo qof kasta loo bandhigi karo waxa mucaqada aan la fahmi karin ama qarsoon ama maaragtay aan ma loo baahna dacwo basiit ah oo sahlan oo dadka dhammaan kii faqiir ah kii qani ah kii maaragtay wax xukumaaya kala xukumayo dacwo la horgeyn karo ayaa loo baahan yahay laakiin dacwo daldalool leh ama dacwo tuhmooyin wadata ama dacwo wax qarsanaysaa meel ma gaarayso ilaa hadda waxa dareemaysa dacwadu waxay ku meereysanaysaa
dadka qaarkood oo dan yarta ah ama dadka maxaan ku yiraahaa xoogaa meel dhexe ah bay ku meereysanaysaa dadkii waaweynaa ama maamulada hayay ama jagooyinka fiican hayay wali lama gaarin marka dacwadeen waxa la qariyo ma laha ceeb la qariyo ma laha waxa ma aragtay tuhna ma laha in laga dhigo shay basiid ah oo qof kasta loo geeyay loo baahan yahay shanaad waxa weeye dacwadu dadka muslimiinta ah waxay haystaan ama adduun ah ama diin ah ama jagooyin ah ama maal ah kuma haysato ku qabsan mayno ma aragtay maalkaaga hayso jagadaada hayso adduunkaaga hayso laakiin sidii ilaahay rabo aan noqonno ilaahay ku caabud meheradaada ilaahay ku caabud adoo ma aragtay suuqaaga jooga ilaahay ku caabud makhaayadaada ilaahay ku caabud jagadaada adoo military ah adoo sargaal ah adoo madaxweyne nin kasta darajada ilaahay siiyay oo adduunka ah inuu ilaahay ku caabudo oo xaq ilaahay guto oo waajibka saaran ka soo baxo ayaa lagu yeerayaa dadka waxa ay haystaan hadii lagu qabsado dhib baa ka imaanaya marka waxa weyn qofku waxa uu haysto inuu hagaajiyo oo si fiican ka dhigo taas bay dacwadu dadka ugu yeeraysaa mid lixaad waxa weeye dacwadan iyo diintan dadka muslimiinta quluubtooda wax weyn bay ku leedahay way ta'thiirisay ama waxa laga yaqaan rasiid ama dhigaal ayay ku leedahay quluubta muslimiinta marka adiga wax sheegidda iyo bandhigiddu iysan ka xumaanin adiga khadaaga iyo culayskaaga dacwada ka ilaali dacwada irdaheeda ha xirin marka qaar kood dacwada waxa dhibahayaaba qofka wata laftiisa baaba dhibahaya oo asaga soo bandhigahayo iyo sidoo u sheegahayo iyo asaga akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa ayaaba maartay dacwadii carqaladeynaya oo culays ku noqonaya oo dhib ku noqonaya oo dadka quluubtooda ka sii jeedinaya marka in la iska ilaaliyo weeye in dacwada maaragtay dib loo geysto in dacwada culays la saaro in dacwada la carqalateeyo nabi sallallahu alayhi wasallam waa sagay Mu'aad bin Jabal ku yiri afatanun anta ya Mu'aad adigu dadka miyaa fitnaynaysaa marka dadku waa muslimiin laakiin qofka hadii wixii lagu dhibo wax kale ka soo bixi kara toddobaad waxa weeye waa iyadoo nasiixa ah in sunnada la raaco oo lagu dhago waa loo baahan yahay haddana in dadka muslimiinta ahi ay isla socdaan oo isku dulqaataan ayaa loo baahan yahay marka sunno raacid iyo ummadii la isku hayo ayaa loo baahan yahay saasoo kale mid kale waxa weeye ayadana dadka qaarkood waxay kala saari laayihiin ama isla heli laayihiin ittibaaca iyo ijtimaaca in ittibaac la sameeyo oo sunnadii la raaca nabiga sallallahu alayhi wasallam la qaato oo wadada lagu socdo iyo in ummadii la isku hayo oo ummadii loo faa'iideeyo dadka qaarkood way isku qaban laadahay oo mesela qaarna ittibaaca ay ku tarxtageen ilaa meesha lagu kala cararay oo dadka kii ugu dhawaa oo asaga ma aragtay maxaan ku hor isku manhajka ahaayeen ayuu riixahaya oo wax ka sheegahaya oo bidcaynaya ama axyaan uu dhiigiisa banaynaya halkaas ka baxaya midna in dadka la isku hayo oo dadku ay kulmaan aan la kala tagin buu culayska saaraya ilaa dacwadii iyo tawxiidkii iyo sunnadiiba uu iska iloobay marka labadaba waa la isku ilaalin karaa in maaragtay ittibaaci lagu dadaalo ijtimaacina lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay masaalixda muslimiinta la ilaaliyo ayada culimada loo noqonay markasta xaaladan maxaan sameeynaa masaan baan yeelnaa masaan baan yeelnaa ayada lafteeda fatwo iyo ra'yi culimo ayay u baahan tahay marka masaladan waxa weeye waa mas'alo runtii aad iyo aad loogu muransan yahay oo fiqhi u baahan in qofku uu sanadiina raaco dadkiina tixgelinayo ayaa loo baahan yahay marka tixgelintuna waa jirtaa sunna raaciduna waa jirtaa sidii marka labada la isku wadi lahaa fiqhigeeda iyo fatwadeeda iyo culimadeeda iyo deganaanshaheeda ayay u baahan tahay in shay sunna ah samaysid oo markaas meeshii shay farad ah uu ku lumo oo lagu kala cararo shay macquul ma aha in adoo dadkii raadinayana faradkii laga tago oo caqiidadii laga tago oo diinta ay lunto oo macsiyo la yimaadana ayaduna wax fiican ma aha marka wada dhexe oo wasad ah oo dhexdhexaad ah oo sunnadiina lagu waardiyeynayo caqiidadiina lagu waardiyeynayo ummadii lagu waardiyeynayo in la raaco
ayaa maaragtay laga maarmaana taasna runtii culummada haddii loo noqdo wax badan insha allahu tacaala ayaa laga fahmahayaa oo maaragtay ay noo faa'iideynayaan laakiin dhallinyarada inta maxaan ku idhaahaa diinta qaar ka fahmay iskala ordahaya oo laga yaabo waxyaala munaasab ah inay ku kacaan oo markaa meesha lagu kala cararo oo dadka kii ugu dhowaa ayuuba fogeynhayaayo uu cayrinhayaayo uu durahayaa runtii waa nasiib darro marka haddii culimmada loo noqdo insha allahu tacaala wax badan ayaa baabka asaga ah nooga baxahaya in diintiinana lagu dhego itibaacii iyo sunnadiina lagu dadaalo ummaddiina la tixgeliyo oo tabarteeda iyo fahamkeeda la ilaaliyo waa la samayn karaa darsiga asaga ah oo ku saabsan manhajka dacwada intaas uu ku egyahay oo aan nidhi 16 wasiilo oo waxa maqan lagu keenayo iyo 7 wasiilo oo waxa la haysto lagu waardiyeynayo iyo 8 nasiixo oo dacwada iyo maarta baabkeeda ku tacalluqa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh